soo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan aynu ku bilownay marka hore ra'iisul wasaaraha Israa'iiliyiinta ayaa waxa uu ku wajahan yahay aqalka cad ee Mareykanka maalinta Talaadada ee lagu soo food leh waana markii lixaad ee markaa uu la kulmo Donald Trump oo muddo sanad iyo bar ah haatan xilliga haya arrintan ayaa ku soo beegmaysa marka gudaha dalka Mareykanka la eego xilli aad iyo aad ra'iisul wasaaraha Mareykanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil looga kacsan yahay gudaha dalka Mareykanka haddii ay ahaan lahayd xisbiga Democratka oo codayntii u dambeysay 103 ka miduhu ay ka soo horjeensatay in dhaqaalahoo dhan laga jaro iyo taageerada military ay soo jeediyeen sidoo kalena Donald Trump taageerayaashiisa markaa codka siiyey oo kursiga ku fadhiyo ee Make America Great ay aad uga soo horjeedaan maadaama dagaal aysan Mareykanku aysan shaqo ku lahayn lagu eedeeyay Israa'iil in ay markaa lugta Mareykanka u gelisay oo aad ayaa loogu kacsan yahay dibadbaxyo waaweyn ayaana la qabanqaabinayaa xilli markaa daraasadihii u dambeeyay ee gudaha Mareykanka ka soo baxay taageerada Israa'iil ay sagxadda joogto iyo meel aysan weligeed gaarinin Netanyahuna lagu eedeeyay in uu kala fogeeyay taageeradii Mareykanka shacabka Mareykanku ay hayeen iyo siyaasiyiinta Israa'iil iyo Mareykanka uu kala fogeeyay si kastaba ha ahaatee daawadayaal socdaalkiisa ayaa waxa la sheegay arrimaha ugu waaweyn in ay markaas ay tahay sidii mar kale dagaal Iran loogu soo qaadi lahaa oo labadii dagaal hore Iran lagu soo qaaday hadii ahaan lahayd kii hore ee samarkii hore bishii June 2025 iyo kii Epic Fury 28 bishii labaad ee sanadkan 2026 lagu soo qaadayba hadafyadii laga lahaa midkoodna uusan suurtagelin tusaale Iran in gantaaladeeda iyo nuclearkeeda la burburiyo uraniumkeeda gacanta lagu soo dhigo dowladda la fashiro shacabka lagu kiciyo waxa soo dhan waa suurtageli waayeen bal waa lagu fashilmay ee khubaradu leedahay waxaana ka dhacday fadeexadii Watergate waayahay haddaba arrinta laga wada hadlayo ee ugu weyn waxay tahay ee lagu tilmaamay inay tahay significant Iran in mar kale weerar lagu soo qaado socdaalka Netanyahuna agso waxa ay sheegaysaa in markaas inuu yimaado oo arrimaha laga wada hadlo oo mar kale Donald Trump lagu qanciyo dagaalka in uu qaado markaa laakiin horey laba weerar maadaama lagu soo qaaday kuwa kalena isdaba joog ah 13 habeen soo dhaafay ay socdeen waxa la isweydiinayaa muxuu kan kaga duwan yahay Iran waa tii Mareykanka iyo Israa'iilna waa kuwii la yaqaanay maxaa isbedelay oo haatan soo kordhay dhanka Iran marka la eego dhaqaale fara badan ayay heshay sida lagu waramayo oo intii yareeyay xabad joojinta ahayd ayay ka faa'iideysatay inay shidaal fara badan ay beecgeyso radaro casriyana in markaa Shiinaha iyo Ruushku ay siiyeen ayaa la sheegay maxaa soo kordhay oo isbedelaya ma muuqato inay Kurdishku xilligan dhinaca Ciraaq ay ka soo kacayaan oo ay markaa lug ay ku soo galayaan gudaha dalka Iran oo horey ayaa arrinta loogu gool daraystay Erdogan marnaba ogolaan maayo oo asaga iyo Trump waa kala dhimanaya arrintaas hadii ay dhacdo haddaba hadafka iyo ujeedada kulankan ka dambeeya waa Iran arrin kale waxa jirta ayadana looga wada hadli doono oo ku saabsan arrinta Sacuudiga iyo inay nuclear ay samaystaan laakiin arrintaasu waa arrin iska haatan la hadal hayo laakiin xaqiiqatan culayskeeda marka loo eego dagaalka Iran loo qorsheynayo oo aad iyo aad markaas u liito Trump ayaa maalmihii la soo dhaafay afkiisa ka sheegay inuu qorsheynayo weerar aan noociisa kala la arag imaanshaha Netanyahuna kaas ayuu daaran yahay ayay leedahay warbaahinta Exo ee Mareykanka laga leeyahay arrimaha dagaalka daawadayaal marka aynu eegno dowladda dalka Iran ayaa sheegtay in ay weerar lixaad la ku qaaday dalka Kuwait Bahrain iyo waliba dalka Jordan maanta waxaana xusid mudan daawadayaal weeraradaanu inay Iran ay qaaday maalin cad oo markii hore weerarada noocaas aysan qaadi jirin Bahrain waxay sheegtay Iran inay markaa bartilmaameedsatay Amazon Data Center-ka weyn waxayna sheegeen inay markaas ay garab ku siiyaan ciidamada Mareykanka in ay markaa sirta ay u xuraabiyaan
oo ay xog fara badan ay siiyaan markaas waxayna sheegtay iiraan gebi ahaanba in ay digada ka dhigtay xaruntaas Amazon ay weerartay kuna eedaysay Maraykanku inuu ubadka yararka ciidamadooda ay laayaan referensigu halkan waa Manaab iyo 28 bishii February maalintii koowaad dagaalka lagu soo qaaday in ka badan 100 ubad yar ah oo intooda badan gabdho yar ay yihiin 7 jir ilaa 12 jir ah ayay ciidamada Maraykanku halkaas ay ku direen Maraykanku baaritaan ayaa socda ay leeyihiin ilaa haatan laakiin markii daraasadii baaritaankii CNN ay samaysay oo warbaahin Maraykanka laga leeyahay cidda kaliya ee fartu ku godan tahay markaas la sheegay inay weerarkaas ka dambeysay hubka loo isticmaalayna Maraykanka kaliya ayaa haysta agabkaas military ee gantaalka Tomahawk ee double tapping-ka inay Maraykanka tahay marka Iiraan waxay leedahay shirkadan waxa ay caawinaysaa ciidamadaas ubadka yararka laynaya sidoo kale waxay weerar culus ku qaaday oo gantaalo ay u adeegsatay iyo diyaaradaha Joneskaaba dalka Jordan oo ayaga laftigooda dhankooda kala sheegay inay gantaaladaas kulligoodba waasi hadalka u dhigeen ay dhulka soo dhigeen iyo waliba Kuwait oo si joogta Iiraan ay u duqeyso hadii ay ahaan lahayd maalmihii la soo dhaafay oo bartilmaameedsatay mid ka mid ah xarumaha biyaha lagu sifeeyo iyo korontada oo laba waxyaalood oo nolosha dadka khaliijka ku nool gundhigu maadaama dhul kulul uu yahay korontadoo la damiyo mara waxaad shaqeynayaan meelaha biyaha lagu sifeeyo oo la burburiyana kulaylkii oo cirka isku sii shareeray dadku haraad ayay u baktiyeen haddii ay markaas duqeyntaanu ay sii socoto laakiin haatan dhaawac weyn ayaa soo gaaray korontadii iyo waliba biyihiiba Kuwait ayaa sheeganaysa inay sidoo kale ka hortagtay gantaalo iyo drones Iiraan ay ku soo duqeysay dhinaca keetilba daawada dagaalku aad iyo aad ayuu u sii fidayaa waxaana muuqata maalin walbaba inuu faraha ka sii baxayo haddii aynu eegno dowladda Maraykanka ayaa soo bandhigtay gaar ahaan ciidamada taliska dhexe ee Maraykanka ayaa saacad ka hor warkan soo saaray markaas inay aga military ay ku sii wadaan bariga dhexe intaanoo keliyana ma ahan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo markaa ayaga laftigoodu bariga dhexe kusii qulqulaya haddaan qaar ka mid sida wararkii ugu dambeeyey iyo muuqaalada ka soo baxaya waxaa ka mid ah kuwan haddii diyaaradahan aad isha u eegtin maapkan haatan iyo dhabaha ay marayaan oon kuu yara istaajiyo waxay ka imaanayaan Yurub kor ka soo bilow Denmark Germany Austria Romania Greece ayay soo marayaan halkan dhabahaasay usoo qulqulayaanna toos waxay usoo galayaan hawada Israa'iil iyo Jordan ayay soo galayaan boqortooyada Sacuudiga ayay soo dulmarayaan dabadna wadamada kale khaliijka ayay ku arkaynaa in yaro daqsi loo xiro waa kan mar kale daawo mid kalena waa idin tusi doonaa oo asaga laftigiisu macluumaad kale la siinaya oo intaan ka badan waxaana muuqata meelaha aysan diyaaradahan marayn inay ka mid tahay dalka Spain oo si weyn dagaalkan uga soo horjeeda oo dushooda aan la maraynin haba yaraatee meesha wadamadan Carabeed dushooda diyaaradahan ay haatan marayaan ujeedaan Mediterranean Sea soo galayaan ayagoo dhinaca Greece ka soo galaya isla mar ahaantaasna soo hareer maraya dalka Turkiga toosna markaas Israa'iil Falastiin iyo waliba Jordan ay soo galayaan sida aad halkaanba ka wada arkaysaan waxaana la sheegay diyaaradahan inay ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka iyo kuwa hawada shidaalka ku siiya ee markaas KC-130 ay ka mid yihiin ee hawada shidaalka ku haya warar waxaan Broad Somali TV aragtay ilaa iyo 100 diyaaradood markaas sheegaya in ay markaas hawada sare lagu arkayay laakiin Maraykanku marnaba tira cayamin ma sheeginin xilli dagaal iyo colaad lagu jirana cidna markaa agabkeeda military ma soo bandhigto oo ma sheegto laakiin kaloo qalan kara ma ahan flight radarka 24 saac ee diyaarad kasta ee kacda lagu arkayo ayaa markaas arrintan xaqiijinaya sida aynu arki doono Abbas Araachi ayaa noo soo socda waa kan maapka kale aan rabno daawadayeen inaan la wadaagno halka haddaynu ku joojino waxaynu arkaynaa meesha u sarreysa haddaanu ka soo bilowno waxaynu arkaynaa Netherlands Belgium Jarmalka Czech Republic Austria and Hungary Serbia ayaanu arkaynaa Bulgaria wadamadaas oo dhan ayay soo dulmarayaan dhabbihii ayayna markaa toos soo marayaan kano laakiin wadamo kale oo maabkii hore aan ku jirinin
ayaynu arkaynaa. waxaadna arkaysaa turkiga inay ka leexanayaan lebnaan iyo israa'iil iyo falastiin iyo jordan ay toos soo marayaan, dabadeedna sacuudiga ayay saa usoo gelayaan ilaa iyo markaa wadamada kale ee khaliijka ayayna markaa ay dul hoganayaan ama ay degayaan diyaaradahan oo saldhigyo military oo fara badan ay ku leeyihiin. markaad isku eegsid socdaalka Netanyahu, diyaar garowga military, warka ay Centcom ay soo saartay iyo maabkan markaad eegsid, shaki kaagama jiro dagaalku inuu mar kale uu qarxayo. xilligan ayaa laakiin xilli xasaasiya ah oo 27 bisha 10 sanadkan 2026 loo balansan yahay doorashada Israa'iil, xilli Netanyahu uu wajahayo doorashadii abid ugu kharaarayd 30 sano 40 sano ee siyaasadda Israa'iil uu ku jiray. waana ra'iisul wasaarihii ugu cimriga dheeraa ee markaas Israa'iil soo mara. marka waa ugu da'wan yahay kama wadno, dhinaca siyaasadda iyo xaynta jagada ayuu waqti badan soo hayay, shaqooyin kala duwanna uu soo qabtay. marka waa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil soo mara, that is the right word, soo mara. waxaana ka go'an in uu xilkan sii hayo oo doorashada qaraara kusoo socoto uu ku guuraysto. haddii kale waxaa laleeyahay alternative-ku waxa ay tahay markaas in uu xabsi la geynayo maadaama maxkamad ay raadkiisa ay ku joogto. 2 mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa soo gabagaboobaya ayaa leeyahay, maadaama uu ku dhaartay in badan inuu yahay ninka keliya ee ammaanka Israa'iil laysku halayn karo ay ku seexato kuna soo toosto. laakiin arrintaas waxaa kale oo dul hoganaya oo Netanyahu marnaba aan ka tegaynin inta uu koonkan uu joogo ayaa leeyahay, laguna xasuusanaya 7 bishii Oktoobar dadkii ugu badnaa ee Juusha la dilay la dagaalkii labaad ee dunida xilli uu xilka isaga uu hayay ayay Oktoobar 7 dhacday. haddii aad warbaahinta Iiraan aad eegtid, warbaahinta Israa'iil aad akhridid, waad yaabaysaa waxa markaa lagu dhigayo iyo doodaha waaweyn ee dhexdooda gelgelay ee bado iyo biyo loo kala baxay. وهذا دبدا وضيال دانو intaas ugaga baxna arrimaha dagaalka. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan